wafdi ballaaran oo ka socda xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaanada Shanshacaad Taalabuur Maxamed Ugaas iyo degmada Balidhiig oo ka tirsan gobolka Togdheer markii wafdidu soo gaareen deegaanadaasi waxay kala kulmeen soo dhaweyn diiran iyo shacab u helan xisbiga mucaaradka ee wadani ee uu hogaaminayo Murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro qaar ka mid ah dadweynaha ku nool deegaanadaasi ayaa iyagu tilmaamay sida ay u taageersan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana sheegeen inay ka go'an tahay inay codkooda siiyaan xisbiga mucaaradka ee wadani wadani maanta bariba oo Yees Maxamed baan anagu dooran maano nin mujaahida oo dalkan qaribaya dooran maano Cabdiraxmaan Cirro dooranna maanta bariba go'aansanay inaan xisbiga wadani ku biiro si fiican ugu biiro iyo dumar inaan ku biiro iyo waayeel dhamaanba inaan ku biiro ayaan go'aansanay waxa ii farxada magaalada Taalabuur oo ah tuulooyinka aan degaan ahaan ka soo jeedo inay maanta aqligeeda iyo cududeeda iyo codkeedaba ay la barbar taagan tahay xisbiga wadani kuma ridno waa madaxweynihii inaga saari lahaa caqabad kasta oo jirta waa Cabdiraxmaan Cirro Soomaa bureed hadaanu nahay dhamaantayo hadaateen xisbiga wadani waanu idin taageersanay si xaq baanu idin taageersanay lima ducaan idin raacinaya waxaan idin leeyahay guulaysta nahay dhalinyarada Taalabuureed waxaanu taageersanahay xisbiga wadani si mug iyo miisaan leh baanu taageersanahay dadweynahan iyo shacabkan markaa dhalinyarada hadaanu nahay inaanu si mug iyo maamuus leh u soo dhaweynayno taageeradeedana ula dul joogno xisbiga wadani insha Allah taala sheegaynaa waxa tuban dadkii reedhayay oo wadani soo dhaweynaya oo taageersan oo aan ahayn qoys iyo qolo gaar ah reedhayay sidoo kale mas'uuliyiin ka socday xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dadweynaha ugu baaqay in la taageero xisbiga isbedel doonka wadani qoladan Balidhiig aqoon ee ducaynaysa maanta leeyahay wax xiriireen waxaan leeyahay Silaaya laga hayaa salmawada lixle war Balidhiig waa mujaahide ha ku darsoominaan idin leeyahay taageerayaasha ballaaran ee xisbiga wadani ee ku nool magaalada Maxamed Ugaas soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gamca furan ku soo dhawaada sida aad taageerada u muujiseen ayaa xisbiga dhexdiisa insha Allah waxaan filayaa dadweynaha reer Balidhiig horeysa iyo dambaysaba waxay ku suntanaayeen waxqabadkii ama taariikhdii dalka ay ku suntanaayeen maantana waxaan filayaa inay ololaha isbedel doonka ee xisbiga wadani inay hormood ka noqon doonaan baan filayaa oo aynu wax la qabsanaynaa oo aynu taageeraynaa oo aynu codkeena siinaynaa xisbiga wadani soo sidaa ma aha in marba leeyahay kaadhba meel laga xaday iyo hadii la kale dad baa la meel lagu xareystay iyo cod baa la iibsaday war codka iyo shacabka lama iibsan karo qulubta dadka waxaan siyaasad ahayn oo lagu hanan karaa ma jirto baashi mar hadii bahawgaas markabka ka dago wuu daloolaa xaqiiqo weeye mar hadaanu abtiyaal ka degnay idina fari u sheegateen annana aanu iskaga degnay horta kaas waa daloolaa weeye waa ku daay Soomaaliduna waxay tiraahdaa dhuumasho dhabarku muuqda dhuumasho maaha waxaan leeyahay ragga xilka haya ee ummadda metelaya ee Hargeysa looga yeedhayo daqiiqad loo gacan haadinayo ha u yimaadeen population-ka ay cuqaasha iyo salaadiinta u sheeganayaan oo waxa u sheegeenoo meel ku jeeyeen cidna ka bari maynaa waxaynu ku codeynaynaa halka cadaaladda iyo dimuqraadiyadda iyo dib u dhiska Soomaaliland ku jiro lagu eedeeyaaba sideebaad cagaf ugu gudoontay dareenkiinu miyaanu dareen ahayn in la diiday miyaydaan garanaynin in hore markiina la diiday miyaydaan garanaynin in hore socodka la diiday miyaydaan garanaynin dareen yeesha waxa la idinku celinayaa meel ay ka timaadeen waa nasiib darro in Shanshacaad oo ay tahay ardayda ugu fiican magaalooyinka ka soo baxaan intixaamaadka balweyn oo dhan lagu qaadi jiray inay madow ahaato oo xisbiga wadani dabatana imaka madowgii uu ka biiyo ardaydii kaalmaha hore gashay iyo macallimiintoodii karaamada lahayd ku soo tacabtay lacag $500 oo odayaasha ugu dhiibayno aad iyo aad Cabdiraxmaan Rooble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Tiike Kalsan TV Burco